waa galabnimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay 24 bisha koowaad 2021 qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena galabnimona waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay xaaladda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo laga dayrinayo iyo dawladda oo war arrintaasi lagu beeninayo soo saartay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya Dhamaka Mukanan oo gaaray deegaanka lagu laayo dadka ka soo jeeda qoomiyadda Axmaarada ee Matakala dawladda dalka Shiinaha oo la sheegay in ay si rasmi ah uga qayb qaadatay dagaalkii xoogganaa ee Itoobiya ay ku qaaday gobolka Tigray dawladda federaalka Soomaaliyana shuruud adag ayay ku xidhay in ay wada hadal la gasho madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland dawladda dalka Iiraanna waxa ay sheegtay in ay dilayso madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaa wararka galabnimo ee channelka Dooye Dheer Media ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ku bilownay daawadayaal ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa laga dayrinayaa xaaladiisa caafimaad warar isa soo tarayo oo maalmihii u dambeeyay soo baxayay ayaa waxa ay sheegayaan in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu xanuunsan yahay kadib markii laga waayay xafiiskiisa shaqada muddo ka badan 3 maalmood sidoo kalena baraha bulshada ee uu isticmaali jiray Abiy Ahmed iyagana fariimihii iyo qoraaladii uu ku baahin jiray ay ka joogsadeen Abiy Ahmed ayaa waxa la sheegayaa inuu xanuun daran soo wajahay iyada oo warar hadda soo baxaya ay sheegayaan in loo qaaday dalka Talyaaniga halkaas oo la doonayo in lagu baxnaaniyo xaaladda caafimaad ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dad ka mid ah dawladda dalka Itoobiya isla markaasina ku jira mas'uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in ra'iisul wasaaraha uu soo wajahay xanuunka COVID-19 balse dad kale ayaa waxa ay sheegayaan in Abiy Ahmed uu ku dhacay xanuun aan ahayn COVID-19 balse mid daran isla markaasina sababay in ra'iisul wasaaruhu muddo dheer xanuunkaasi uu la jeefo gabar la dhalatay Abiy Ahmed oo maalinnimadii shalay baraha bulshada inuu soo galinay ayaa waxa ay sheegaysay Abiy Ahmed in xaaladiisu ay daran tahay inkasta oo dadka qaarkood ay sheegayaan in gabadhaas aan la xaqiijin karin in ay walaashi tahay balse haddana dad badan ayaa waxa ay sheegayaan gabadha lagu magacaabo Zayd Ahmed Ali inay tahay gabadh la dhalatay Abiy Ahmed si kastaba ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa si rasmi ah loo xaqiijinayaa inkasta oo dawladdu aysan cadaynin xanuunkiisa oo ayba ka hortimid inuu xanuunsan yahay iyada oo la sheegayo in dad ehelkiisa laga helay xanuunka uu la daran yahay ama uu la jiifo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed boga xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo qoraal arrintaasi lagu beeninayo la soo dhigay ayaa waxa lagu yiri sida tan waa been waxba kama jiraan wararka baraha bulshada la wareejinayo ee sheegaya inuu xanuunsan yahay MB Itoobiya Abiy Ahmed balse midaasi ayaa waxa la sheegay in ay dab ku sii shidayso toonkii waayaanba laga qabay xanuunka ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed waxaana la sheegayaa inuu aad u xanuunsan yahay sababtuna waxay tahay maxaa keenay inay ku dhawaad ama ka badan bil muuqiisa iyo maqalkiisaba aan la araga laakiin hadiiba uu caafimaad qabo maxaa qoraan laga soo qoriya isagu muu toos u beeniyo oo uu sheego inuusan xanuunsanayn oo uu soo hadlo arrimahaasi oo dhan ayaa waxa ay u muuqdaan in ay yihiin kuwa beena isla markaasina shakiga si xoojinaya laga qabo xanuunka uu la ildaran yahay Abiy Ahmed mid kale diyaarad laga leeyahay dalka Jarmalka oo kuwa gurmadka degdega ah ayaa xalay la xaqiijiyay inay timid magaalada Addis Ababa diyaaradaasina waxa la aaminsan yahay in lagu qaaday madax sarsare oo ka tirsan dawladda taasi oo loo badinayo inay tahay oo kaliya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed si kastaba ha noqotee shaki iyo tuhun aad u daran ayaa hawada isku shareeray iyada oo laga shakisan yahay badqabka caafimaad ee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Itoobiya Dhamaka Mukanan oo maalinnimadii shalay booqasho ku tagay xero ay ku jiraan barakacayaal ka soo qaxay gobolka Matakale deegaanka Benshangul ayaa waxa uu yiri waxaanu dejinaynaa qorshe ah in aynu hubinno qaar ka mid ah barakacayaasha si ay uga soo dagaalamaan gobolka Matakale una difaacaan naftooda iyo axmaarada gobolkaasi ku nool hadalkani ayaa waxa uu dood badan ka dhaxay
abuuray qoomiyadaha dalka Itoobiya oo sheegaya in wasiirkii arrimaha dibadda ahna ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu sidaasi u hadlayo. Dhamakan Mukanan ayaa waxa uu sheegay in sababta uu xeradaasi u tagay ay tahay in uu badqabka dadka ka soo qaxay deegaanka Benshangul uu arko, kadibna ay ku abaabulaan dhaqaalana ay ku bixinayaan in dadkaasi deegaanadoodii ay ku laabtaan ayna ka dagaalamaan. mar hore ayaa sidani oo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda Dhamakan Mukanan waxa uu bartiisa baraha bulshada uu ku soo qoray inay tahay in qoomiyadda axmarada la hubeeyo, isla markaasina dowladda Itoobiya ay dhaqaale ku bixiso si loo difaaco iyaguna ay isu difaacaan. hadalkaasi oo in badan oo kamid ah dadka reer Itoobiya ay si weyn uga yaabeen. dhanka kalena dowladda dalka Shiinaha ayaa la sheegay in ay si weyn uga qayb qaadatay dagaalkii xoogana ee ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya ama gobolka Tigray. warbixin ay soo saartay xarunta EEB ee fadhigeedu u yahay dalka Belgiumka ayaa waxaa lagu sheegay in diyaaradaha daroniska ee Shiinuhu ay dagaalkii Tigrayga ka qayb qaateen. warbixinta ayaa waxaa lagu xusay in diyaaradahani ay wax ka bedeleen natiijadii dagaalka, isla markaasina ay jabiyeen ciidamadii gaarka ahaa ee Tigrayga. sidoo kale warbixinta waxaa lagu sheegay in dad rayada oo boqolaal gaadhaya iyo waliba laba wariye oo ajnabiya ay diyaaradahani beegsadeen. kumanaan dad oo ka soo jeeda gobolada Tigrayga iyo sidoo kale dad wariyayaal ay ku jiraan ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhinteen gobolka Tigrayga, isla markaasina ay dileen diyaaradihii wax duqeynayay. warbixintani laguma sheegin in diyaaradahani duqeymaha geystay dalal kale la soo mariyay iyo in Shiinuhu si toos ah uga qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray. dhanka dowladda Soomaaliyana war ka soo baxay dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in dowladdu ay shuruud aad u adag ku xidhay in wada hadal ay mar kale la furto madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland. wararkii u dambeeyay ee aynu ka helayno muranka ka taagan doorashada Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay shuruud ku xidhayso in ay ku dhawaaqdo shir la isugu yimaado oo xal loogu raadinayo ismariwaaga xooggan ee ka taagan doorashadii la rabay in dalka ay ka qabsanto. ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay saxaafadda u sheegeen in dowladda ay ku adkaysanayso in Puntland iyo Jubbaland ay marka hore ku dhawaaqaan gudiyada doorashada ee ay diidan yihiin si wada hadalka uu u furmo. labadani maamul ayaan weli magacaabin gudiyada doorashada heer gobol, waxa ayna sidoo kale ay iska diideen in Muqdisho ay u soo direen gudiyada doorashada heer federaal ee ay horay u magacaabeen kadib markii ay ku eedeeyeen dowladda federaalka in gudiyada heer federaal ay ka soo buuxisay saraakiil iyo sirdoon ciidan. shuruudani cusub ee dowladda ayaa imanaysa iyada oo lagu wado in madax goboleedyada ay shir isugu yimaadaan, hase yeeshee waxaa suurtagala in go-aanka dowladda uu shirkaasi baajiya maadaama oo inta aan la gaarin ay dowladda istaagtay mowqif aad u adag. xubno ka tirsan filla Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in madaxtooyadu ay diyaar u tahay in xubnaha cabashada laga qabo ay ka saarto guddiga lagu muransan yahay ee doorashada haddii Puntland iyo Jubbaland ay soo magacaabeen gudiyada, iyada oo labadani maamulna ay ku adkaysanayaan in marka hore xubnaha dooda laga qabo laga saaro gudiyadaas. arrintani kale ee muranku ka taagan yahay ee ku saabsan ciidamada dowladda ee jooga gobolka Gado ayaa waxaa jira xog aynu helayno oo sheegaya in madaxweyne Farmaajo uusan marnaba aqbali doonin shuruudda Axmed Madoobe ee ku aadan in ciidankaasi laga soo saaro gobolka Gado. dhammaan caqabadahani ayaa waxa ay ka dhigayaan in xaalka ugu dambeeya uu ku jiro gacanta beesha caalamka, ayna saamileyda siyaasadda Soomaalida sugayaan amar uga yimaado halkaasi laguna kala saaro muranka doorashada ee dhinacyada Soomaalida ay isku hayaan. aan ku bilownay dowladda dalka Iiraan ayaa waxa ay sheegtay in ay dilayso madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump. hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa bartiisa Twitterka waxa uu soo dhigay qoraal iyo sawir u muuqda mid uu ku baaqayo in la weeraro madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump si loogu argudo dilkii sanadkii hore Mareykanku uu u geystay taliyihii ugu sarreeyay militariga dalka Iiraan General Qasim Soleimani. sawir la soo dhigay boggiisa rasmiga ah ayaa waxa uu muujinayay madaxweynihii hore Mareykanka oo golof ciyaaraya xilli la arkayo
hooska wax u eg diyaarad dagaal ama diyaarad weyn oo aan nooca aan lahayn duuliyaha ee daroniska loo yaqaano. sawirkaasi ayaa ciwaan waxaa looga dhigay aargudasho waa mid la hubo islamarkaasina dhici doonta. shirkadda twitterka ayaa waxa ay xidhay ciwaan yar oo dad badani aysan ku taxnayn oo markii ugu horreysay lagu daabacay warkaasi. haweeney afhayeen oo u hadashay twitterka ayaa waxa ay sheegtay in wakaalada wararka ee Reuters in ciwaankaasi Khamenei Said uu yahay mid been abuura islamarkaasina uu ku xadgudbay nidaamka iyo siyaasadda shirkadda twitterka sida afhayeenka twitterka u hadashay ay sheegtay. si kastaba tee qoraalka uu ku lifaaqnaa sawirkaasi oo ku qoran luqadda Faransiiska ayaa waxaa sidoo kale dib loogu faafiyay ciwaanka rasmiga ah ee Ayatollah Ali Khamenei uu ku leeyahay oo ay ku taxan yihiin in ka badan 300,000 oo qof, balse markii dambe ayaa la tirtiray oo laga saaray boggaasi twitterka ee Ali Khamenei uu leeyahay. qoraalkaasi oo ku qoran luqadda Faransiiska ayaa ereyga aargudasho waxaa lagu qoray farcasana, waxaana qoraalka intiisa kale uu leeyahay dilka Suleymani iyo ciddii amarkaasi bixisayba waa in loo ciqaabaa loona dilo sida ugu dhaqsiyaha badan. qoraalkaasi iyo sawirkiisa ku lifaaqan ee la soo dhigay bogga rasmiga ah ee Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu soo xiganayaa hadal uu jeediyay 16 December kaasi oo mar kale uu wacad ku maray in Suleymani loo argudi doono waqti kasta oo ay noqoto aan lana ilaawi doonin. shirkadda twitterka ayaa waxa lagu booriyay in ay wax ka qabato hanjabaadahaasi kadib markii dhowr qof oo isticmaalaya twitterka ay shirkadda ku dhaliileen in Trump ay ka xidhay bartiisa Twitter balse aysan xidhin kan hogaamiyaha Iiraan Ali Khamenei. shirkadda twitterka ayaa horaantii bishani waxa ay xidhay ciwaankii Trump ee dadka aadka u badan ay ku taxnaayeen kadib markii uu daabacay qoraallo loo arkay in ay dhiirigeliyeen rabshadihii hadheeyay dhismaha aqalka Koongareeska Mareykanka. Generaal Suleymani ayaa dowladda dalka Iiraan u fududeeyay xoojinta kooxaha xagjirka ahi ee Iiraan taageersan, waxa uuna ballaadhiyay saameynta military ee Iiraan ay ku leedahay wadamada Ciraaq iyo Syria. Iiraan waxa ay sidoo kale ay abaabushay kooxda dowladda Syria gacan ka siinaya la dagaalanka kooxaha fallaagada ah ee muddada dheer qaybta ka ahaa coladaha sokeeye ee ka aloosan dalkaas. madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa dilka Suleymani kadib waxa uu sheegay in Generaal Suleymani uu si toos ah iyo si dadban uu mas'uul uga ahaa dhimashada malaayiin qof. dowladda Iiraan ayaana dilkiisa waxa ay uga falcelisay gantaalo fara badan oo ay ku duqeysay. dowladda dalka Iiraan ayaana dilkiisa waxa ay uga falcelisay gantaalo fara badan oo ay ku duqeysay xarun ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka Ciraaq oo ay deganayeen xilligaas. ciidamada Mareykanka waxa ayna ka digtay weeraro kale iyada oo Ayatollah Ali Khamenei uu xilligaasi sheegay in aargudasho ba'an ay sugayso dambiilayaashii ka dambeeyay dilka Qasim Suleymani. shirkadda twitterka ayaa horaantii bishani waxa ay mamnuucday qoraal oo Ayatollah Ali Khamenei soo dhigay boggiisa kaasi oo uu ku sheegay in tallaalka cudurka COVID-19 ee ay sameeyeen wadamada UK iyo Mareykanka ay yihiin kuwa aan la aamini karin. dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Itoobiya Damaka Mukanan oo maalinimadii shalayto booqasho ku tagay xero ay ku jiraan barakacayaal ka soo qaxay gobolka Matakale deegaanka Benshangul ayaa waxa uu yidhi waxaanu dejinaynaa qorshe ah in aynu hubinno qaar ka mid ah barakacayaasha si ay uga soo dagaalamaan gobolka Matakale una difaacaan naftooda iyo axmaarada gobolkaasi ku nool. hadalkani ayaa waxa uu dood badan ka dhaxabuuray qoomiyadaha dalka Itoobiya oo sheegaya in wasiirkii arrimaha dibadda ahna ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu sidaasi u hadlayo. Damaka Mukanan ayaa waxa uu sheegay in sababta uu xeradaasi u tagay ay tahay in uu badqabka dadka ka soo qaxay deegaanka Benshangul uu arko kadibna ay ku abaabulaan dhaqaalana ay ku bixinayaan in dadkaasi deegaanadoodii ay ku laabtaan ayna ka dagaalamaan. mar hore ayaa sidani oo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda Damaka Mukanan waxa uu bartiisa baraha bulshada uu ku soo qoray inay tahay in qoomiyadda axmaarada la hubeeyo isla markaasina dowladda Itoobiya ay dhaqaale ku bixiso si loo difaaco iyaguna ay isu difaacaan. hadalkaasi oo in badan oo kamid ah dadka reer Itoobiya ay si weyn uga yaabeen.
dhanka kalena dowladda dalka shiinaha ayaa la sheegay in ay si weyn uga qayb qaadatay dagaalkii xoogana ay ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya ama gobolka Tigray. warbixin ay soo saartay xarunta EEB ee fadhigeedu u yahay dalka Belgiumka ayaa waxaa lagu sheegay in diyaaradaha daroniska ee shiinuhu ay dagaalkii Tigrayga ka qayb qaateen. warbixinta ayaa waxaa lagu xusay in diyaaradahani ay wax ka bedeleen natiijadii dagaalka isla markaasina ay jabiyeen ciidamadii gaarka ahaa ee Tigrayga. sidoo kale warbixinta waxaa lagu sheegay in dad rayada oo boqolaal gaadhaya iyo waliba laba wariye oo ajnabi ah ay diyaaradahani beegsadeen. kumanaan dad oo ka soo jeeda gobolada Tigrayga iyo sidoo kale dad wariyayaal ay ku jiraan ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhinteen gobolka Tigrayga isla markaasina ay dileen diyaaradihii wax duqeynayay. warbixintani laguma sheegin in diyaaradahani duqeymaha geystay dalal kale la soo mariyay iyo in shiinuhu si toos ah uga qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray. iyo in shiinuhu ay si toos ah uga qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray.